barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadanaynaa imaatinka dawladda Soomaaliya ay timi maamulka waqooyi bari xaruntiisa magaalada Lascanood saxaafadda adduunyadu waxa ay ka qortay ama ay ka tiri. شارك سفير خادم الحرمين الشريفين في الصومال أحمد المولد في حفل تنصيب عبد القادر أحمد علي الرئيس المنتخب حديثا لولاية شمال شرقي الصومال بمشاركة رئيس الصومالي حسن شيخ محمود وسفراء وممثلين من تركيا والسودان ووفود من أنحاء القرن الأفريقي بما في ذلك كينيا إثيوبيا وجيبوتي. TV-gan oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in safiirka dalka Sacuudiga u jooga Soomaaliya inuu ka qayb galay xafladaasi sidoo kale wufuud ka socota dalka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sidoo kale waxay sheegtay in wufuud meel kale ka socota ay ka qayb gashay madaxweynaha Soomaaliya uu yimi maamulka waqooyi bari. Waxaanu eegana dhanka kale bal dalka Masar TV-giisu waxa uu ka yidhi arrintan isaga oo aad u falanqeeyay. وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مدينة لاسعنود عاصمة ولاية شمال شرق الصومال في زيارة تحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة وتأتي في توقيت حساس تشهده المنطقة. وتعد ولاية شمال شرق الصومال من المناطق التي كانت خاضعة في السابق لإقليم أرض الصومال الانفصالي، إلا أن أبناء الولاية رفضوا محاولات فرض المشروع الانفصالي عليهم بالقوة وأعلنوا تمسكهم بوحدة الدولة الصومالية. وفي عام 2023 شهدت المنطقة مواجهات انتهت بتمكن السكان المحليين من تحرير مناطقهم من سيطرة الميليشيات الانفصالية في خطوة اعتبرت تحولا مهما في مسار الصراع ورسالة واضحة برفض أي واقع يفرض بالإكراه. زيارة الرئيس حسن شيخ محمود إلى لاسعنود تعد تأكيدا على دعم الحكومة الفيدرالية لمطالب سكان المنطقة وعلى التزام الدولة الصومالية ببسط سيادتها الكاملة وتعزيز وحدة أراضيها. TV-gan Masar waxa uu ku xeel dheeraaday oo si fiican u faahfaahiyay dhacdadan meesha ay ka soo bilaabatay isagoo qaab taariikheedna ku daray oo sheegaya deegaankan inay haysan jirtay koox gooni goosata oo doonaysa dalka Soomaaliya inay kala qaybiso laakiin dadka deegaanku ay babacdhigeen oo ka saareen 2023 isagoo oo sheegay in marnaba aan dadka lagu khasbi karin laguna caburin karin waxa aanay doonaynin. Sidoo kale booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku yimi waqooyi bari magaalada Lascanood wuxuu TV-ga Masar isagoo faahfaahinaya ku sheegay in ay tahay mid loogu aasayo dhidbada jiritaanka iyo midnimada dalka Soomaaliya. waxa uu ku soo gabagabeeyay in Soomaaliya ama maamulka goboleedkaas waqooyi bari uu ku yeelay meel istiraatiiji ah oo laf dhabar u ah dalka Soomaaliya midnimadiisa. Dhanka kalena waxaynu eegaynaa bal TV-ga Masar laftiisa oo barnaamij cajiib ah ka diyaariyay iskaashi ka dhaxeeya dalka Masar, Sacuudiga iyo Soomaaliya oo lagu ilaalinayo deegaankaasi sidoo kale Turkiga iyo wadamo badanna ay gadaal ka taagan yihiin iyo Pakistan iyo Qatar. في تطور لافت على صعيد الترتيبات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، كشفت وكالة بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية تتحرك لتشكيل تحالف عسكري جديد يضم مصر والصومال، وذلك في إطار تعاون دفاعي يركز على تعزيز أمن البحر الأحمر وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية. وبحسب التقرير فإن هذا التحالف يأتي في سياق محاولات سعودية لإعادة رسم خريطة النفوذ الأمني في المنطقة وسط مؤشرات على تراجع دور الإمارات العربية المتحدة في بعض الملفات المرتبطة بالبحر الأحمر. وأشارت بلومبرغ إلى أن الصومال يقترب من إتمام الاتفاق بشكل نهائي، وذلك بعد أن أنهى مؤخرا تعاونه مع الإمارات في ملفات الأمن وإدارة الموانئ. التحركات الجديدة تعكس تصاعد التنافس الإقليمي على تأمين البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية ومفاتيح الأمن الاستراتيجي في المنطقة. waxa uu sheegay in boqorka Sacuudiga ama dhaxal sugaha Sacuudiga uu guntaday sidii uu dalka Masar, Soomaaliya iyo Sacuudiga ay isaga kaashan lahaayeen sidii ay u ilaalin lahaayeen badda cas, gacanka cadmeed iyo marinada muhiimka ah ee baddaas iyo meelaha ku hareeraysan. Sidoo kale iyagoo shaki weyn ka muujiyay Imaaraadku dhaqdhaqaaqa ay ka sameeyaan deegaamadaasi iyagoo oo doonaya inay dekedaha kula wareegaan meelo badan oo dalalka Afrika iyo wadamada Carabta ka mid ah, iyagoo oo shaki ba'an ka muujiyay Imaaraadka dhaqankiisa ah lagana hortegayo dhaqdhaqaaqiisaas lana ilaalinayo amniga iyo iskaashiga iyo nabadgelyada ka dhaxaysa dalalkan. Bal dhanka kalena waxaynu eegi doonaa arrimaha sidoo kale TV-ga caalamiga ee Al Jazeera qaybtiisa Carabiga ayaa waxa ay soo qaadatay barnaamij ay u bixisay dhacdadii ugu weyneed ee qaaradda Afrika ka dhacday isbuucan iyadoo oo soo qaadanaysa imaanshiyaha madaxweynaha iyo prime ministerku ay ku yimaadeen maamulka waqooyi bari magaaladiisa xarunta ah ee Lascanood. barnaamijkaas oo in badan ay ka hadlayeen ama diyaariyeen laakiin ayna halkan ku soo wada qaadan karin waxa idin ka soo qaadanaya sawirro iyo dhacdooyin kooban oo aad ku arki kartaan in ay TV-ga Al Jazeera barnaamijkaas ay soo qaateen.
imaatinka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu noqday mid runtii siyaasadda Soomaaliya oo dhan bedelay kadib madaxweynuhu marka uu ku dhawaaqay in maamulkani uu yahay maamul ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhameystiran. Waxa uu yiri madaxweynaha Soomaaliya maanta waxaan halkan ka cadeynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa oo kale waa dowlad goboleed buuxda haddii aan la yiraahdo oo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka caddeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxayna hadda wixii ka dambeeya u istaagaysaa dib u dhis horumarin deegaanada waqooyi bari ee Soomaaliya. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka saacidaysaa maamulka cusub dhinaca amniga iyo deganaanshiyaha deegaanada waqooyi bari. waqooyi bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda iyo wadajirkeeda ummadda Soomaaliyeed. waxaad halgan dheer u soo gasheen oo aad saldhig u noqoteen midnimada dalka oo aad wax badan u urteen inaad xaqiijisaan. ma aha markii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliya ay timaado maamulkan waqooyi bari magaalada Laascaanood. hadda ka hor waxa yimi Mr. Xamse ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hogaaminaya wafdi ballaaran oo kamid ah golihiisa wasiirada iyo xubno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. laakiin waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare iyo madaxweyne Soomaaliyeed ay iyagoo isla socda soo booqdaan iyo golahoodii wasiirada ay soo booqdaan maamul goboleed Soomaaliya ku yaala. sida caadiga ah labadooda midkood un baa tagi jiray ama wasiiro ay u diri jireen. laakiin waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo golihii wasiirada oo isla socda ay maamul goboleedyada ka mid ah Soomaaliya ay soo booqdaan.